Asalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga mar kale kusoo dhawaada saacadii cunto karis. Asxaabta maanta waxaa sameyn doonaa bariis Soomaali isku karis. Aad iyo aad ayuu u fudud yahay, waqti badan ma ka qaadanaya, macaankiisana ma laga sheekeyn karo. Marka waxaa rajeynayaa inaad ka faa'iidaan sida uu sameynayo insha Allah. Waxaa ka bilaabi doonaa bariiska marka intii u karsanaysid familkaaga ayaa kusoo shubanaysaa weelka mas inta adiga karsanaysidbo kadibna bariiska horta iska dhaqayna si fiican iskaga dhaqid waa bariiska sida u jeedinbo wasaqdaas hadda ka baxayso ina iska dhaqid ayaa fiican. Marka 3 mar camal biyo ku dhaqaa kadibna bariiska biyo ayaa la dhigi doonaa insha Allah. bariiska marka biyo la dhigo bariisku 1 saac camal ilaa 30 daqiiqo ilaa 1 saac camal ayaa la dhigi kartaa biyaha. hadhowti markaa karinaysid biyo badan inaad ku shubtid ma loo baahna sidaas darteeda. hadda digsi ayaa dabka soo saartay, saliid yar ayaa kusoo shubtay. kadibna 1 xabo basal oo soo jarjaray si yariis u soo jarjaray ayaa kusoo shubtay. kadibna waxaa ku dari doonaa insha Allah toonta 4 xabo isticmaala. marka 4 xabo toon sidaas ugu soo shubtay waxaa kusoo shuba doonaa hilibka. marka ani waxaa isticmaali doonaa hilib ari oo garabka hilib ariga. marka midkaan isticmaalahayna waa mid oo oo fridge-ka hoose laga soo bixiyay asoo bac ku xiran ayaa soo gatay. inta xaba u baahanahay ka soo baxsade waa soo dhalaaliyay barafka dhan ka soo dhalaaliyay waa soo jarjartay. marka fresh ma aheenin midkaan isticmaalayo aniga mid fresh hada heli kartid hilib ari garabka waa isticmaali kartaa insha Allah. marka sidaas digsi ugu soo shubtay maraq digaag ayaa ku soo shuba doonaa. maraq digaag waxaa isticmaalaa midka jumbaha maraq digaag jumba 1 qaado iyo wax yaris camal ayaa ku soo shubay. kadibna filfil ayaa ku soo shubanaysaa. filfishi markaa sidaas ugu soo shubanay waxaa isticmaali doonaa marwo xawaashka oo marwo laakiin midka haystida isticmaali kartaa qasab maaha inuu midkaan ahaado laakiin xawaashka oo bariiska oo lagu daro ku soo shubanayna. kadib intaas ayaa si fiican iskula soo qasaa. inta marka iskula soo qaso waxaa ku soo shuba doonaa yaanyada marka waxaa sameyn kartaa mid shiishiidka caadiga oo caagada ku jirto baakadka ku jirto isticmaali kartaa ama mid adiga haysatid yaanyada caadiga shiida kartaa. marka ani hadda 2 xabo yaanyo soo shiiday ayaa ku soo shubay meesha digsiga ku soo shubay. kadibna waxaa isticmaali doonaa kabsar caleen. toonta iyo kabsar caleenta waa isku tuman kartaa oo hadaa ratid laakiin ani midka toonta lagu jabiyo haystaa marka midkaas ayaa toonta kula jabiyay. kabsar caleentana sidan ayaa ugu jarjartay isku mid waaye sidaa ratid sameyn kartaa insha Allah. marka kabsar caleenta markaa sidaas ugu soo shubanay waa soo biyo doonaa hilibka kadibna dabool ayaa saarayna. marka waxaa loo baahan yahay hilibka inuu si fiican u bislaado biyo oo macna fiican ku shubanaysaa adi saacad ilaa saacadii bar dabool iska saaraysaa digsiga la soco maanta oo dhan daboolka inuu hoos kaaga gubanin dabka u gaabi masha Allah hilibka inuu saaid ku bislaado la rabaa. marka hadartaan aniga saa u jeedin daboolka ayaa soo qaaday hilibkii wuu soo karsamay biyihii waa kaas woo gursaday biyo badan ku shubay marka hilibkan waxaa loo baahan yahay marka sidaas gacanta ugu qabatid inuu kala jabi karo oo macnaha oo jilaac yahay ka wadaa inuu saas u jilaaca la rabaa. markaas bariisku ku soo shuba doonaa insha Allah. waa kana bariiska oo oo 1 saac camaleeto biyo la dhignay oo ka soo shubnay biyihii. hadda u jeedinba biyo badan ma ku shubay marka bariiska ku shubay digsiga biyo ma biyeynay sababtoo bariiska uu jilicsan yahay biyo badan ma u baahna biyahaas oo ku jiro bas kula karina waa kula daboola dabka u gaabina bariis furfuran oo aad iyo aad u macaan noqona. marka asxaabteyda qaaliga waxaa rajeynaa inaad ka faa'iideen videogan. waa kana sida u jeedin bariiska sidaan ayuu noo noqday aad iyo aad ayuu macaan bariis furfuran waaye. waxaa rajeynaa asxaabteyda qaaliga videoga inaad ka faa'iideen hadaa ka faa'iideen asxaabtiina la sii wadaaga insha Allah.
channelka hadaa ku cusub tihiinna subscribe-ka ha iga hilmaamina. Subscribe-ka agtiisa gambaleelka ku yaalana inaad taabsatiin soo idinkugu soo dhaco video walba aan mustaqbalka soo geliyo insha Allah. Asxaabteeda qaaliga intaan hadda soo gaarteen videogan fiirsashadiisa aad iyo aad ay u mahadsantihiin. Insha Allah commentigana iigu soo qora wixii aad maaragtay arabtiin inaan idiin soo geliyo next. waxaan isku arki doonaa videogan videoga xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.